السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتيها بوندا وديال دمانتين بميل كستا او ادشوكتان اما بعد نقل السعوتان ونقل داونسا وقتيقن حاضرك كسو دوادا برنامج تحانا سفركي آمنة iyo Somaliland barnaamijyadaasi iyaga oo noqon doona qaar aan ku eegi doono dhinacyo fara badan haday noqoto dhinaca madadaalada hadii ay noqoto dhinaca nolosha iyo waliba horumarka Somaliland عاونا waxa aanu barnaamijkan isaga oo noqon doona barnaamijkii u horeeyay idinka soo tamin doona istuudiyaha aan ku leenahay ama telefishinka caalamiga ee Royal TV uu ku leeyahay magaalada caasimadda xarunta Somaliland waa jamhuuriyadda Somaliland caawna waxa nasiib u yeelatay oo istuudiyaha noogu diyaar oo nala fadhida in ay caawa barnaamijka nagala qayb qaadato fanaanideena caanka ahayd ee wada jeclaydeen fanaanin badan baa jirta oo ku nool wadankeena Somaliland hadii ay noqoto magaalada Hargeysa iyo hadii ay noqoto magaalooyin kaleba caawase waxa aan idin hayaa ano jecel ba in aad ku farxi doontaan marka aad magaceeda aan idin sheego amaba aad maqashaanba yaanan idin kaba daahinay yaa kale waxa weeyaan سهرة أحمد عبد الله وضوض قرتين بان أمالين أنون إذين براعيني يا كله وسهرة إليس أنا كوب سودويو سهرة عادي بان وفرح سنة عاودين الدين عايقة فرديدو أو أنا كلها هذا كل شيء كيسنا يون كوري سنة بالكو سودو برنامج كسفر كي أمنية سومالي لا أمنية أنا قلنا سودويني ما حضر من فنانين ورياش iyo fanaaniintuna ma kala foga absolutely hadii jeeralada isla baynu nahay meediyadan mar walba kulliba tu heesta iyo tu ka hadashaba ayaynu wadanay aaminiyaad baan ku soo dhaweynayna aad baan u maadsantahay asumada kulliyaad ee fidisada halkan iga yaadhay aad baad ugu maadsantahay adoo waliba nasiib u yeeshay caawa in aad bade noobada furto wargaraamada taxana aha farxad gaar ah taasina inoo tahay Soomaaliya aad labadeennaba هي بل سهرة إليس dadka oo dhan ku wada yaqaanaan inta fankaaga jecel inta xiisaysa inta heesaha dhageysata iyo waliba inta magacaaga maqashaba Sahra Ahmed Abdullahi Sahra Ilaysay de Ilayska baxayaaba te maxal ugu bixiyay magacaas horta aaminay iyo baan santahay horta sideedaba fanaaniintu wax leeyihiin horta qof walba naanays buu leeyahay absolutely inkastoo dadka kale leeyihiin laakiin haddana waa nooga badantii Soomaha fanaaniintu ku badan marka qof aan naanays lahayn ma jiro way yiriin marka horta runtii aaminay aniga waxa la igu bixiyay ruwaadii u horeysay horta anigu fanka waxaan ka bilaabay jigjiga magaalada Itoobiya ayaan ka bilaabay Itoobiya aan ku dhashay halkaas la igu bixiyay ruwaadii ugu horeysay ayaa la igu bixiyay Ilays kooxdan ka tirsanaana waxa loo oran jiray Ilays baan imikada way jirtaa kooxdaasi markaas la bixiyay Ilays dadku way jecel yihiin ba in ay ogaadaan amaba ay daawadaan Sahra oo ka hadlaysa xaqii ka soo bilowday fankeeda halkii ku dhalatay ku soo barbaartay adoo already inooba sheegayba inaad jigjiga ku dhalatay waan ku dhashay wallahi laakiin kuma barbaarin waan ku dhashay laakiin anoo halkan ku koray ku weynaaday Somaliland baan ku koray anigoo yar baa la keenay halkan runtii de qofku meesha ku barbaaray buu iska yahay laakiin waan ku dhashay Itoobiya waana nahay de kulliba absolutely marka mar walba de fankaaga marka Somaliland baad ka bilowday aad وهجاك إن سهراي ما وحنا مالنا ده إمك إن دتك إنه عبار وشيكين إنه يو ها إنه هالكاسي أي إن لا تشان قادنا إن تاونا يعني روح إنه تشعلها هي مركنا إنه عد كاجي معنا بل أي كسر دوينه وإنت عد كاجي نمقلنا هي صهاجي تحنا وحليه هندي حاجة عيد هي سير نجاب بلعبه وحكوا بلعبه لهاي وحكوا بلعبه لعرض رنتي أنا عرض هي صهاجي وبدأ لما وريسا لقى قاضي أما مقالن كدوبة واحد دوريا هيس عصب وانو فيصل تشي وعابنو هي وعصب وإنك تعوها بكسوق ما شاء الله ما أنا إنا قبل نقول بلعب سبعة فيصل بانو ذكرنا هي لكن أنا بيت كي جيبان قاضي هي تضبط كسوق صعدة قال كدينات كله بمركز حاجات تعمل أنا هلي دورنا عاد كله فيسبوك يده إن شاء الله بكداون دور يوتيوب يده ما شاء الله وهامي يوتيوب يده كله واحد مع قناة نقول waxaan golongolay gowran socodkayga dhigay waxaan golongolay gowran socodkayga dhigay waxaan iga
jaray gasikii gacalo xusuuste iga jaray gasikii gacalo xusuuste waxaan la golongolay gowrac socodkayga dhigay waxaan la golongolay gowrac socodkayga dhigay waxaan iga jaray gasikii gacalo xusuuste iga jaray gasikii gacalo xusuuste markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste sida guban barwaaqa geediyo ka imaada sida guban barwaaqa geediyo ka imaada sida gudka sare mogol yahay udugaaga gooba gudka sare mogol yahay udugaaga gooba sida guban barwaaqa geediyo ka imaada sida guban barwaaqa geediyo ka imaada sida gudka sare mogol yahay udugaaga gooba gudka sare mogol yahay udugaaga gooba markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado markoonko gurigiisa gameew oo hurdada lado anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste anna waxaan la gohaa gacalo xusuuste ما شاء الله أنا وحن لقوها قعلة وحسوسته وحبا كده عيده مراها waxa iska leh nin runtii abwaanuhu aad aniga iigu qaaliy runtii oo aad u mare macaan oo aniga kaliya ma ahade fanaaniinta inta uu wax u dhiibay oo dhan baqaali ku ah way abwaanku markuu wax ku dhiibo uu ku qiimeeyo adna waa inaad qiimeysaa absolutely علي إبراهيم عبد الله يراها على قرابي بكم مقعدير يهي حق الناس كله يشوفه إنجليز ودقي لحن كانوا واحد سكله نينكي ده محاية تلحن كيو فنك بدر رون تاني ويجوي يهي فنك ويجوي لكن عد كي سنوان شعلي لحن كي سنوان شعلي شام حريو ما شاء الله أي سكله ولا سكوتي موسيقى أنا واحد تومي
axmed weli ibraahim furunleh يا كله ayaa kale ayaa tumay ما شاء الله مش ولا بديه waa lagu dheeyay هي أدخل واحد لقوه aniguna dee waa aniguna dee xusuustii baan la goohay aniga iyo faysalna xusuustii baan la goohay iyo codadkii baa macaan aad ayaa raacsan waaxaga ka heesta inta ka gudubno sahra afka waxaad ku dhafatay abwaan runtii aad kugu qaaliya abwaaninta runtii marka aad u eegto fanaaniinteena haddii ay noqoto fanaaniinteenii hore ee dee fankeenii hal doorka weyn ku lahaa hoboladii waa beri iyo haddii aad eegtaba fanaaniinteenan dambe intaba dee heesahan ay qaadayaan iyo fankoodan mar walba abwaan baa ka dambeeya aad iyo aad abwaan bay ku taamaan oo ay yidhaahdaan abwaankaasaa isoo gacan qabtay fankayga isaga ayaa ka mas-uula adigu abwaan ma jiraa runtii saasoo kale kugu ahoo kusoo gacan qabtay marka aad fanka aad ku cusbayd amaba de mararka ama imika aad kugu qaaliya aad iyo aad haye wallaahi horta uu jira haye aniga runtii horta wadanka markaan hargeysa markaan imi ilaahay ha u naxariista ninba aad ii gacan qabtay jaamac cabdilaahi kadleeye abwaan buu ahaa jilaa buu ahaa ninkii wadanka bay igu soo dhaweeyey abwaannimadiisana runtii aan aad u jeclaa horta waanu ducaynaya ilaahay ha u naxariista baan leeyahay caruurtiisana oo salaamaya wixii ka dambeeyeyna de kule abwaano fara badan baa waxay dhiibay maxay way badan yihiin abwaanada maba soo koobi karaba waxay dhiibta maasha allah dal iyo dibad carabta ha joogaan yurub ha joogaan hargeysa ha u bataan way badan yihiin marka hadda iyagana aad baan u wada salaamaya salaanta way inoo dambeynaysaayoo mar gaaraan ku siinayayo aan xor kaaga dhigayaan kugu odhanayaa yaad salaamaysaa waa inaad wada xasuusnaato markaasaan ku siinaya balse inta ka horeysa iyada oo sahray uu fankaagu dee ballaaran yahay oo do dhinac walba sida badda aad u dhex qaaday haddana dadku runtii waxay kugu yaqaanaan amaba ay aad kugu qadariyaan dhinaca iyo guubaabinta wadaninimada ayaa aad runtii aad caan ugu tahay markaad u eegto fankaaga oo aad iyo aad dadku ay kugu yaqaanaan heese aad u fara badan ayaad u qaaday somalilan oo aad dadkaad ku wacyigelinayso ku guubaabinayso dadka aad ku kicinayso waxaanad ii sheegtay in aad ku dhalatay Ethiopia marka wadanka runtii aad u dhalatay marnaba isku dayday in aad dhinacooda aad heeso ama guwaabino wadaninimo ah in aad balinaca iyagana aad ku daydo aad iyo aad amine aad baad u mahadsan tahay horta runtii waa runtaada anigu runtii waxaan aad u jecelahay horta jacaylka waan jecelahay oo sideedaba inaan heesaa jacaylka dawanigan qaadayaba wadanninimaduna igama maqno aad bay igu dheertay aad iyo aad horta Ethiopia markaan horta kaaga soo bilaabo waxa weeye runta Ethiopia ku dhashay laakiin heesoo ma qaadin weli mar walba wata Soomaalidu tiraahdo dee fanaanka ama abwaanku isaga dee hubkiisu waxa weeyaan waa afkiisa mar walba dhinacaas waliba dadweynaha la yidhiidile iyo waxa ku abuurtaan guubaabin iyo shucuur markaasi maaragtay marka ay mirahaaga maqlaan sii badanaysa marka mar walba iyaga waxa la yiraahdaa hubkoodu dee waa afkooda aad iyo aad afkayga ku cilbaya haye markaan wadaniga maxay heeto dalka amaanaya kuwa ciidanka amaanaya maxay heeto intaba waan qaadaa in heesaha runtii fara badan leed qaado naga soo koobi karaynin waxaan jecelahay inaad wax yar nooga soo yara qabato oo dadka yar dadka aan kuwan markaa wadaniga biyaha kulli wadaniga horta wuu badan yahay aaminaay aniga wadanigayga ma soo koobi karo absolutely heesaha wadaniga aan qaado ma soo koobi karo laakiin hees runtii aan aad u jecelahay oo la ilaaha boonay hargeysa ayaan maxay heeto dadka ugu yaro luuqayn la haye oo dee maxay ahayd kulli dadkuna dawa yaqaana heeska way iska garanayaan ma garad marka maxay tahay heeskaasaynu dee u sii daynayna dadka
وهاجاك داوديال عدكي معنا iyo waliba heestii haboonay hargeysay waxaan jecelahay in aad si fiican ugu wada raaxaysateen anagoo waliba dhexda baalanayna oo ku dhex jirna barnaamijyadii taxanaha Xasan horeba idinku sheegay safarkii aaminay ee Soomaaliland ayaan waliba caawa qaybtii madadaalada aanu jecelahay in aanu idinka qabtirno fankeedii codkeedii nolosheedii intaba anigu oon kala reebeynin heestaan inaad aad uga hesheen ayaan jecelahay waliba ay idinka cisay bal markana sahra dadkii waynu kicinay bal dhinacay imikana jacaylka iyo heesaha iyo aynu hadayna dib ugu noqono runtii iyaguna dhinac kala jirto oo iyaga laftigoodu guubaabin u baahan oo in la amaano in loo heeso in ubaxiyo iyo faraawilo laga daba tuuro loo duceeyo dhinac kale waa aroosyada dhinacaana kama maqnido sahray iyagana waa bad u qaata haye heeso badan aroosadaan leeyahay haye runtii de kulli wada aroosku waa loo baahan yahay absolutely waqtiyada loo baahan yahay in farxadda arooska laga qayb galo loo heeso lala farxo maxay tahay loo mashxarado la guubaabiyo inta la sii waaniyo de intaan guursana ha waxaan leeyahay guursada ku dayda kuwa hore waa hagaag bal markana waxaan jecelahay daawadayaal in aan idinku soo dhaweeyo in dhinaca iyo guubaabinta iyo in heesaha aroosyada in codkii macaana ee Sahra Ilays iyo heestii arooska maqam diran iyo waa madal aroos eheliyo martiba farxad lagu mahdo maqam diran iyo waa madal aroos eheliyo martiba farxad lagu mahdo waxay muteen xidigaha cirmaray madadaala wacan waxay muteen xidigaha cirmaray madadaala wacan kaashmunad wacana bax lagu mariimaha madaxooda sarane manidhaina meroon mara malal mahadiye muraadkina hela
maamuus dhaqankeenna mudan maragugu dhaco cawana 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 cawa waxay muteen laba sacab ka marid maamuuska hibo cawana 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 cawa waxay muteen laba sacab ka marid maamuuska hibo waxay dhex mashaxa waa mahadhada kalgacalko maashaysa ducaadeen wanidhaayna aguwa murtiye haweenow midnimo ugu dara mashxara waxay dhex mashaxa waa mahadhada kalgacalko maashaysa ducaadeen wanidhaayna aguwa murtiye haweenow midnimo ugu dara mashxara labadii midnimo ubad maamule markastaba dadaaro ku meel mari malmahaaduun magacoo jire midho fiican dhala mawlow ka yeel amiin amiin mawlow ka yeel labadii midnimo ubad maamule markastaba dadaaro ku maamule malmahaaduun magacoo jire midho fiican dhala mawlow ka yeel amiin amiin mawlow ka yeel labadii midnimo ubad maamule markastaba dadaaro ku maamule malmahaaduun magacoo jire midho fiican dhala mawlow ka yeel amiin amiin mawlow ka yeel ما شاء الله دي دعادي أمانتي قولوا يا بنتي وما تكلا ريبنتي أنا كحب إنه ما تريبنتي أنا كنا آمين آمين الله تيا الله توسي أيا فاعلنا صراحة أنت كلا دي على الدنيا يعود تاجي معنا horta runtii abwaa kii sameeyey ها dee aad buu mahadsanyihiin isagana آدي آدي dee markuu qofku maxay toy hees gubaabaha oo aroos oo ducaa markuu sameeyo qofku waxa weeyaan dee waa in la ilaa shukran absolutely aad buu mahadsanyihiin isagana abwaakana waxa la yidhaha dalmaanfuro maadaama dee dhinaca gubaabinta aroosyada iyaga laftigooda mar walba way u baahan yihiin ha waa heer cusub oo soo kordhaya oo maasha alle eh ha intaas wixii ka dambeeya deegaynu deeynaa mas'uuliyadda Soomaha iyagaynu deeynaa waa inagu u heesno oo in gurigana ku xareyno oo in u ducayno ha ka soo baxan wax leenahay ma sha Allah Allah idin barakeeyo ilaahay idin barakeeyo dhinaciina ka soo baxa diiriyo toosiya oo aagay dawladda dan inta ku dhaafno codkii macaana ee sahray ilaa heestii arooska dhinac walba way idin balan qaato waxa aan malaynayaa in idinka dhargisay haday noqoto dhinaca wadanimada haday noqoto dhinaca jacaylka badii way dhex qaadee bal markana سهراي runtii fanaaniinta waxa tahay aadka loo qadariyo aadka u waaweyn fanaaniintu ku daydaan kuna nool caasimada Hargeysa qurbahaase haddii aan ku yara taabto fanaaniin fara badan baa soo kacaysa fanaaniinta fara badan ee soo kacaysa markaad codkooda eegto runtii fanaaniin baa jira aad cod wanaagsan ha inta badanse waxay qaadaan heesa aan iyagu lahayn oo fanaaniintii hore ay leeyihiin haddii se ay qaadi lahayn heese marka iyagu ay leeyihiin inay kasii macaanaan lahayd baa laga yaabaa
bal aada maantaan kula fadhiyaan ku hayaayo fanaanadihii maxaad ku odhan lahayd ama aad ku guwaabin lahayd iyada oo weliba abwaanadeeduna ay fara badan yihiin oo dhinaca abwaanada aynaan kaba aradnayn ha haddii ay hees u baahan yihiin maskaxdoodina joogto ha maxaad iyaga aad kula talin lahayd odhan lahayd fanaaniinta da-da yaree soo kordhaysay heesihii fanaaniintii hore aadka u qaada maxaad odhan lahayd adigu fariintaas waxa weeye horta anigu runtii isma ilaalin fanaanadii baa tahay anagu baa ku sheegayna soo maaha aniga fanaaniiniga waaweyn baa joogtaa saare axmed baa joogta jaamac fardaahir baa joogta fanaaniintiga waaweynay nuuraa joogta maryam hasan baa joogta markay kuwaasi joogaan anigu ma sheegan karo fanaanada weyn baane anu qolyihii dhaxana hase yeeshee qaar baa aniga iga siiyay de horta kuwa horubaad adigu kuwa aniga iga siiyay qaar baa ka siiyay absolutely qoloba qolo digsanaysa dee qoloyinkan idinka idin digsanaya maxaad markaa kula tali lahayd laakiin horta runtii waxa weeyaan waxaa fanaaniinta berita joogta qaar cod macaan aani way joogaan aada iyo aad runtii aan codkooda aada uga helo sahar ahaan inanta la yidhaahdo fadxiifiska iyo inanta la yidhaahdo ibaan qaraale fadxiye kama yare inamadana fanaaniin fara badan oo aada uga macmacaan baa jirtaa laakiin madaha fadxiye kaba yare waxaan isiri hees iyadoo ay leedahay mooyaane heese ay bad leeyihiin iyo inanta lagu dhahdo maxay ta ibaan qaraale heese ay bad leeyihiin kumaa noqday heese iyagu leeyihiin bay qaadaan runtii fanaaniin fara badan xaggaa joogta aad baan lagu taageeraa aad bay cod macaan yihiin runtii ma kala dhacaanba fanaaniin badan baa jirta aada cod macaan nimca dareen maxay ta aamina kule day fanaaniin badan baa jirta ha inagu waxaanu gubaabinaynaa uuni intan ha heesaha marka waxa weeye aaminaay wata kuleeda xaggaa tagayday haye fariintaan qaadaya dee haye way iga sii horeynaysaaba fariintii ha way ku tan casri la gaaray wixiiba caawan baa ku shubaysaa adduunka wala laga daawa inay iska daayaan heesaha koobiga ah way heesa iyagu leeyihiin intay samaystaan ay ku soo baxaan abwaanadii baa joogta laxamiistayaashii baa jooga muusikiistayaashii baa jooga marka qofku heesuu leeyahay horta anigu sahar ahaan hees koobiya weli maan qaaday heesahaygun baan kusoo aanbaxayo marka dadka ugu dhadanaa heeskii maxay yatay maxaad heesaha dadka horta u qaadi weydaa sahray aad noo qaadin waayo ma qaadaba heesaha qof kale fanaan kale heesiisa ma qaado ma jecla runtii inaan qaado iyagana waxaan leeyahay heesyadu waxay leeyihiin qaada dee abwaanada waynoo buuxaani ha maxay tahay fadxiifiska heesaan leebay qaadaa haye waanu tifir u dhaqaan jiray loo naxariistay haye waxay inaan tilaan baa laga haysta marka dee dadkan dambe dhalinyartan dambe tifir ma garanayaan waa run ilaa u naxariista uu dhintay anigana anigoo yar iyo isagoo de marka wanaga waxay tahay youtube-kan ku jirnaa anagoo heesina hees ka qaadayna dabadeetana habeena waxaan arkayba nin ka hadlaya tv-ga etoobiya oo leh heeskaanaa sameeyey maxay tahay eryadaana iskale waa heesta adii difar wada qaadisii balkii lagu sameeyey iyo goobtii waqtigii la sameeyey iyo waqtigii laxanka la saarayna goobjoog bana heeskaana laga sameeyey haye heeska iyo hees kaloo lagaa dhintooda dhexaadka hal mar looga sameeyey haye marka abwaanku ha markuu sameynayna waa la joogay laxanka markii la saarayna difar baa saaray la joogay adigaaba qaadayeyba daanaaba qaaday dabadeetana taadiba kaaga waran kartaa dee gobjooga codkii heesta dee adiga difeer baa hayde laakiin qofka fanaanka markaad heeskiisa qaadayso isagana xus waxaad tiraahdaa hebel baale dabadeetana heeska waan jecelahay waana inaan qaadano waan jecelahay runtii dee way jirtaa fanaaniin badan oo ka hela heesihii fanaaniintii waaweyna ay qaadi jireen laakiin markaad u egto adduunyadan hore u martay marka uu fanaanku uu qaadayo in hees uu leeyahay fanaan kale runtii way xusaan horta aniga bir baaba layga soo qaaday heesihii hore oo dhan fanaaniintii waaweyneed heesahoodii oo dhan baa lasoo wada qaaday haye waxbana dhib ma laha oo dee heesaa waa la kala qaadaa absolutely waxa dee macnihii anigu sahar ahaan kulleyda waxa laakiin aad unu jecelahay qofka fanaankana inuu isagu heesu leeyahay u qaado qaado baan aad u jecelahay ka doontaa leeda dee abwaanadii weynoo buuxaani abwaanadeenu runtii abwaano badan oo macaan
rag badan oo la xamil maxaan oo day muusigiisayaasha bay haysanaa absolutely hadday marka day wax macnaheedu ay kalifayeen heeska khibrada halka ama kiis hore Axmed qaada ama aan qaado day waxay u kalifayeen ama aynu xusnaba dee aynu ku xusnaba fanaanka waan jecelahay heestiisa xusuduna meesha ku jirta farxiya marka ay ka heesa badan bay soo qaaday iyo leedahay runtii aad baan u salaamaya aniga heesa kaliya bay soo qaaday heesa badan bay dadku qaadaan aniga kaligeedna ma وليس كستول ليك قاد لا بحيت ليك قاد ما قدره واي وسان هيس دبل ليك سو قاد مين فهد هو دوسي شيء هيدا كليد ما يدك كلام اديك لا يحس سما ده هي ما هديك على قاوي انت تنطلت لا خبرت هاي الهيس اللي ذاك وانا هذا فنانه دان جعلها هي خطط هاي هو هيستي فرنكي هو هيس كده جعلها هي انا كله قيدنا رسول وفر انتاس marka iyagana waxaan dib ugu gaabinayna heesaygu leeyihiin ay qaadaan lagaba yaabaaba in ay kaga sii cod wanaagsanaan lahaayeenba marka ay heesaygu ay leeyihiin ay qaadaan waa hagaag fariintaasna waxaan leeyahay gudbinaysaa hare alla waa gudbinaysaa haanayna duumaan si fiican waa hagaag bal waa hagaag markana haddaan heesaha gidib ugu soo noqono heestada markana adina soo qaban lahayd inagoo jacaylkii dhex dabaalanayna والله هيس بني نص قبل إن شاء الله هي اسمع عنه شعيره وحسبي مبارك عبد يوسف من الله يرحمه بسميه هي وحن كروح الصاري إن هي توي محمد حيد بوسي أي الله حق وكمان من هذا فنانين تاني هو بلاد ودر absolutely نولي كمان ها مبارك نوا أبوه يروحون في أبوه ندم آد كأمره محله يمكن هي صبر ولي بقى لكن قاربا يمكن تعوها صاروا ما بيقولون عن قاعدة لكن ولي بيصبحين هي بس نروتي وإن الحلم يساعدون شعر الحمد لله وسؤولين وقاطع هي سجنات دون توصل مية هي خاصة قوية هي استمرت هي سكمركها وكحد ليا قبل دي بعد إنك لا هذا سو حيل هاي معناه دمر والبوحة على حلمنا wax kasta oo wanaagsan ayaan kula jecel garabkaaga taagan adaan kula doonaya aduun baa wax walba kula doonaya haye waa jacaylkee waa jacaylka haye hadda xitaan cunto cunila adaan ku siinaya adaan teelado adaan ku horeysiinaya adaan ku horeysiinaya haye macnaheedu horta waxaas ku hadlaya haye nolosha ama jacaylkuna toobstaade absolutely labada qof is jecel waa inuu hayda jacaylka ma lagu wada sahray marka weeyaan gabadh ninkeeda markay jeceshay waa inay daahday cunto cunaya wada cunaan hadday maxay tahay hawl wada qabanayna hawsha dhinaca wada afka isugu guraan damee weynay dhinac bay sida hayaan ba markay doonto lahan marka maxay ahayd toy intaas ku fiican tahay noloshu markay ugu macaan tahay weeyaan markay ugu fiican tahay labada gabadhuna raaliya tahay gurigeeda fadhido haye maxay ahayd waxaan ku leeyahay sahray heestaasi waxaan u malaynayaa ti isjeclaydoo dhan ayaynu caawa isku soo dhaweynaysaa maaha dee waayo balaynu saarno nafku dirsanon ku diiday dadka kale aan danaynayn doonistaada كدالين دون السادة كدالين نفكو درسانو كديدين تدكا كالي عندنين doonistaada aan ka daalayn doonistaada aan ka daalayn ibindaabiyo kula doonayn dabub kule ku damqayn قد بيري دقنوا وانتي قد بيري ابن
daabiyo kula doonayn dabub kule ku damqayn deganoo waan diiqad beeray deganoo waan diiqad beeray haddayrin adoon daryeelayn haddaalini adoonan dawaynayn daacad u ahaw danqaabay daacad u ahaw danqaabay haddayrin adoon daryeelayn haddaalini adoonan dawaynayn daacad u ahaw danqaabay daacad u ahaw danqaabay dal dareemayn dareemayn dartaa dal dareemayn nafko dabaranoon ku diiday dal dareemayn dareemayn dartaa dal dareemayn wixii ku dana aan ka doodayn wax ku darana doonayn la'aantaada aan ku degahayn la'aantaada aan ku degahayn wixii ku dana aan ka doodayn wax ku darana doonayn la'aantaada aan ku degahayn la'aantaada aan ku degahayn haddayrin adoon daryeelayn haddaalini adoonan dawaynayn daacad u ahaw danqaabay daacad u ahaw danqaabay haddayrin adoon daryeelayn
hadaalini adoonan dawaynayn daacad u ahaw danqaabayn daacad u ahaw danqaabayn ما شاء الله دوحة أكلها waxaan ku haahay aad iyo aad aaminay عد كان معان وحن كلها ده هودي كده جدي بنت سهرة وده شعيل بقى كده aad iyo horta heeskan da'da yar yar oo dhan eraya fara badan oo aanay dee fahmin ayaa ku jira danqaabayniyo wax dee fara badan baa ku jira aad iyo aad intii dee dadkii hore dadkeenii hore aad iyo aad markaa maxay aad iyo aad markaa maxay ahayd tooy horta runtii dhinac ma kaa maarmay mar walba gabadhii heel iyo hoo labada way la garab taagantay والله هرتا وجعل دبخ أيان لينا كل هرتا نيجا أبوان كير إينو شيء لكن هسك ودريم كلا لكن هسك إنه جعل ولي بدأ هاي توي ده gabadhii baa ninkii la hadlayso waxlaadi waan ku garab taagani ده وحول بقى وأديك ده كلا أديكونا ده داعد يا هوبلت إن كستون إمك رجوعني ده بديدو داعد هاي ده داعد أيام ده أبوان كلمت كيسان ولا ده داعد وها داعد ولا سنتي أديا كتير هسه سنتي أتوقع شعيل كهذا بدنا نشعل أيوة دعوة إنه إن أكون شيء طاوضين بركركني عوا وجب ولسه كمان كي معنا إسهر إليس بفكرنا وحأنا مرينا يا بدي إن أنت ساعدة يولي بمالما أن لقصو كوبي كريم إنه قصي واختيار بينه وهلا يوم ونشعلنا نسيب بالسماء لكن سهل أما أنا لم تصوبا أنا بدي ما كرسول مالي لم تصوبا إن شاء الله واحد عاديات واحد رجيني إن شاء الله هنا الحاجة يدي كوي ما شاء الله حدي لها قروي وبريسكي إلهي كقرو إن شاء الله ونديني من دور إن شاء الله حدي لها سيد قصة قطن الدالي يسود ويسود أنا اللي يصلها ما يوحوي دلك هاجي باتمي دلك هاجي هو ياتمي إن أنا كسود وإن أنا حق بانو لنا هاي إن أنت كدي باتهاي قبل ورياء runtii aad u qurux badan oo wariye ah oo codkeeda iyo iyaduba aad u qurux badan anaguna aad baan ku soo dhaweynaa aaminay runtii marka TV-ga aad maxay heetay ku jirtana oo had iyo jeer barnaamijyada aad daadihinaysana horta si qurux badan baad u labisataa ma garatay marka mar baan isla talo heeday aamina ma maxay heetay talo ma meel gaar oo dharka looga talo oo dhaseenka looga sameeyo ayay leedahay haddana maxay ahaytay horta in sideedaba aaminay horta in quruxdu horta ilaahay baa bixiya quruxda ما شاء الله laakiin labiska hablaha Soomaalida dhawada qurux badan yihiin laakiin labiskuna qayb quruxda ka badan way nadaafadu sida uga bartahay diinta uga bartahay ay qofku inuu isnadiifiyada jaraalo wax qurux badan xidhaana uu fiicantay qofka dumarna kullayba waxa uu wanaagsan inay hadiya jaraale de isqurxiso ayaa wanaagsan qurux dheeraada aadi ما شاء الله وهاga xaqii aynu aan ku soo noqdo adiga markii sahray runtii heesa fara badan qad fanaaniin badan wad la heesto aadiga oo aan fara badan ayaa la qaaday heeso haddana fanaanku mar walba uu iska jecel yahay ama uu niyada ku qabtaa fanaan uu jecel yahay inuu la heeso aadiga هي فنان كبار تعيشها أما بعد إن الله يستو ونظهر ويهيسين أما أنا لا كل من تعيشها إن الله كل أو أنا الله يستو أو عدم عن أو أتكاش ويتعيشها الله يستو يكون ما يدقار تقار فربضن بالله يسا هرجيسو هرت دلير تجوكتا ده هرت waxay dhiban baan u malaynayaa inay rofnaan isnu cid macaan oo nimxaan helaa nimcaan yare baan wali la hees adban u hela codkiisa aad cod macaan aad iyo aad iyo in la yiraahdo abdi isagana fanaan huwa abdi la yiraahdo isaguna xidigaha ku jira baan wali la heesin laakiin BK waa la heesay cirra waa la heesay fanaaniin hore oo ka horreysay runtii waa la heesay imikana waxa rajeenayaa فنانتي دبده joogta qaar kamida way qaboojiye waan la heesay imika waxa rabaa fanaanti dibada joogta niyada ku haysid bandooliya saare midaniyada ku haysid jecesha inaad la heesto codkiisa jeceshahayo ama ka dheeraada ku joogi aad iyo aad waxaan aad u jecelahay inaan la heeso hadana nafta waayay awaala ninka la yiraahdo awaala aabin awaala iyo kaliya
diyaaradda soo saareen ama ana idin saari waa sida ama de ana la saari ama isaga la soo saari marka amba wadankuuba imanoo de insha Allah waan la heesi doonaa hadii la yiraahdo walaalkan codkiisa aad baan u jecelahay fanaaniin farabadan number farabadan oo codadkooda jecel way jiraan laakiin inaan ka mar walba isiraado tiro goormad la heesi doonta awaale de wala heesi doonaa hadii insha Allah waan suugaynaa waxaan ku daamadaan diyaaradda saarnaa isaga soo saarnaa waan suugaynaa heestaan waa hagaag salaanta ma caawdiso waxaan maleynayaa sahray inay farabadan doonto aad iyo aad horta walaalo sideedaba aaminahay qofku markuu kamarad soo hor fadhiisto wax farabadan baa kaluma marka aniga markaan TV-ga soo fadhiisto dad farabadan baan iska iloobaa dad farabadan de walaalo dawaanay wada salaamayeen runtii laakiin anigu qofkeen ilaawa dayaanu maxay ahayd de xumaan igu qaaday laakiin waa salaamayeen aad iyo aad niyada wartana laakiin binaadam inuu ilaawa horta aad iyo aad waxaan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inta af Soomaaliga ku hadasha meel kasta joogto horta waan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda Somaliland meel kasta ay joogto aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa inta dalka ila joogta ee magacayga iyo muuqayga taqaana Somaliland la joogta iyo intii kale ay taqaanaba iyagana aad baan u salaamayaa waxa kale oo salaamayaa fanaaniinta dal iyo dibad meel walba fanaaniinta aad baan u salaamayaa family-ga marka wadi ii dambaysiinaysa waxa laakiin in aad ay ku dheero markaan wadan isaguna aad iyo aad runtii fankayga qayb libaax ka qaatay oo intaan weliga la wareysanayba aanan soo qaaday maxamed waadan oo kamaradiista oo de kamarad imika muduubina weligiiba duubi jiray de bahashan khibrad weyn oo barnaamijka caawad arkaysan quruxda badan naga duubaya aad soo diyaariyay aad iyo aad kamaradiisa aad iyo aad salaan gaar u isna naga buday hay sahra de barnaamijkii ka bogan oo salaami ka bogan oo dhawaanay aad iyo aad meel walba hadaba heesada caawa barnaamijka aad inoogu soo gabagabeynayso inagoo de in badan badii jacaylka soo dhex dabaalanay iyo de badii gubaabinta iyo dhiirigelintaba maxaad jeceshahay ama weliba jecel dhinac kale u baydho maxaad jeceshahay caawa inaad inoogu soo gabagabayso heestaada inoogu soo xidhiso barnaamijkeena maxay noqon doontaa aad badan maadsantaa amanay horta dee in badan baynu jacayl ka soo hadalnay badaa waynu dhex qaadnay horta sideedaba adduunyadu dee way noocyo badantay absolutely qaar baa marka jacayl lagu guursado jacaylkaas oo wadaya qaar baa rag xumeynayaan marka dhinac walba wala inuu ka hadalo fiican tahay heeskan waa forjo ragga lagu forjinaya abwaakii sameeyey kulleyba dee waxaan malaynayaa dee kulley dee dumarkaas uu ka hadlaya dee kulley kuwa dee cabanaya ma garanaysaa marka raggana marmar waa in loo yara kiishaadii ma garanaysaa yara forjeeyaa aad iyo aad heeska waxa le يوسف علي اللالي أبوان لي راهدو ويمارات كده كم بايس كله لحن كانوا وحلا مردوفني لي راهدو موسيقى واحد تومية معلكي وينه يوسف شيخ مؤمن سبحان الله يا تومية واحد شاش مركا هيستي ندي نوك سو هيس كسب سوق بقبينيه وهاجاك دي هيستي انا وني waxaan deeynaya in codkii macay sahar ilays waxaan malaya forjada ka sii nooga sii wada doontaa waxaan heesti taa shawaan riyadaad ku dararta adiga degdegayo isu tumay durbaanke hortayaadan kugu qabay riyadaad ku dararta adiga degdegayo isu
hagaag runtii heestaasi wax aad baan anigu uga helay inta ina daawanaysaana waxaan jeclaynay aad uga heshay heestaasi ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabeynayaa aniguse waxaan runtii mahad u aad iyo aad u weyn aan u celinayaa Sahra Ilays runtii sida aad nooga aqbashay in aad caawalka noogu timaado stuudiyaheena aan kulena magaalada Hargeysa barnaamijkan aad nooga aqbashay barnaamijyadan taxanaha ah aad iyo aad ba kugu mahad celinaya waad ku mahadsantahay waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawa ee safarkii Aamina iyo Somaliland qaybtii madadaalada oo ay marti inoogu ahayd Sahra Ilays intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah inta ay kaga tagi doono waxaan mahad aad u weyn u celinayaa kaameramanada iga caawiya dhinaca kaamirada Maxamed أو آدم يولي يحيى الشيخ إسماعيل فيفا يولي بسمسم دمانتود ما هذا آدوين يجوا برنامج كان إجلا قيب قاتي أيام وعلنيا يتسكور إذا أنا أمر فيسا وحى عن إذن الله هاي دمانتين بملكست أو أتشوكتان سيدا إيو نبت قليو مع السلامة باي باي